safki markii lagu jiray ayaa islaamiga qaar kamid ah waxay leeyihiin warmaan dhow ninka intuu nooga imaanaya America buu nooga imaanaya America inta maskiinka waa la soo tarxiilay يا ونكا معاه برفوق وطن يا حاجي يلا ذا مكت أصلا ما دام يسنو أي بس إيكا وانين دبن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي مالك استعدون كجوكتان وصاحبكين كنسيكي له isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiisale waxaan ku rijeynaya adigoo caafimaad qabana soo laabatay sidaan anigoo caafimaad qabo hortaada ugu soo laabtay ilaahay ma iskala saaxiibayaal waa tahay waa barnaamijkeeni 24 saacadaha ahaa alaaba inuu ku soo qaadan jirnay arrimaha bulshada wixii marka uu saameynta badan hal iyo labo let's go maxaa isku dhacay highway afar labaatan saac la soo dhaafay waxyaabaha ugu hadal heynta badan waxa kamid ah ninkan oo qoftan agteeda ku dhiban muuqaalka waxa la daawo shaqo culus ka socota ay wa tii xaji ya حاجي يلا ذا مكت أصلا ما دام يسنو أي بس إيكا وانين دبن نين آدي آدو دبن واي ونكان دبا هست يا ونكان معاه برفوق وطو نكا وحال يرادا حبيب برفونو انت قاضي او نكا سياسية ديدي والوكو كعسية سوشيال ميديا ونكا محا برفون كلا دونتي warsay wax u jira malaba ay u soo dhacday gabadhii markay madaxtooyada aadaysay iyada barfuun isku buufi jirtay ninkan asaga yaabo waxa uu leeyahay siyaasiyiinta barfuun u wata social media hada ninkan waa lagu kacsan yahay wax la karbaashaya suun ii soo qabaan soo dhacay heer aadano waxaan isku ogeyn ninkan wuxuu noqday شعترت تاين أفر لبعضك ساعة اللي سود دافعي كرجوا الله بس جالن جكلوس دي كسر وريل وعيد تاين باشا هلي هلوا هذا الناف إيه كذي قصل بقنا إذن هاي ريك جريغان أها أو مال يراد عدد اللي وصل دوي islaamaha dibadda isugu soo baxay durbaanay soo qaateen waa garaacayaan wargeesigeeno wargariyaqaano elayhin hal mid ay jirto marka islaamaha waxa loogu sheekeeyay nin siyaasi ah oo lacag haysto inuu America ka imaanayo cadaadina uu u dhisaayo oo ay qadeynayaan islaamaha waxa laga qariyay ninka inuu yahay gariyaqaanka miskiinka jaayilka ahaa ee hadda la soo tarxiilay safki markii lagu jiray ayaa islaamiga qaar kamid ah waxay leeyihiin warmaan dhow ninka intuu nooga imaanaya America buu nooga imaanaya America inta maskiinka waa la soo tarxiilay wargariiqaano islaamaan ee dooyinkeen ah maxaa uga qarada in lagu soo tarxiilo islaamaan maxaa u sirtaa beenta u sheegtay mid kale islaamaan hadda markay runta ogaadaan qofka rasmiga adiga tahay maxaa u dambeynaya nin aqoon-yahan ah oo siyaasi ah oo ayaga wax siinaya cadaado u dhisay imaanaya islaamiin loogu sheekeeyay muuqaaladan adiga laga qabtay markay arkaan maxay dareemayaan Mrs. 9 million halkaan fadhiya Mrs. 9 million halkaan fadhiya Aristaan le ugaaskeena wala dhimanayaa kulli daan waxa weeye kulli daan iigu sheekada haye kulli daan nafsatu kulli daan nafsatu كل نفس kulli daan odaxaayo waay eedooyinka masaakiinta ahaa ee beenta loo sheegay horta ninka leedin keenay waa jaahilkan oo waliba daara calisow America ka soo tarxiilay nin wax soo bartay oo aqoon leh oo baasaboor Amerikaan haysta ma aha ninka idin yimid beena leedin sheegay annaga qalbada naga wasaqaynina diinteena wasaqay taas waxa ka sii daran islaamaan qoraxda taagan ma ogiin ninkan inuu diinta islaamka caayay 3 bari ka hor mid kale waxa arkay adoo le waa isdagaalena
walaalow ma anaga isku level ahba maxaa isku dagaalnaa anigu weli saaxiibkaabaan ahay weli waa isfalow gareynaa anigu waxaan ku leeyahay aniga adiga isku level ba manihin gareeqaanow maxaa isku dagaalnaa adiga waa xanaaqsan tahay anna reaction baan kaa bixinayaa ogow dadkaad la mid tahay tiktoka adaa iskeenay meesha madaxweynaha reaction looga bixiyaa gareeqaanow waa iska xiiqsan tahay waa iska caytamay ma ahane dagaalkaas sheegaysaahu aniga dhankeyga kamaba socdaba mana isdagaali karna labadeen kullu nafsin daa'iqatul mawt Mrs 9 million iyo CK ma isdagaali karo walaalow nin wax bartay oo reer magaal ah cilmi iyo maadiba ka dhisan iyo nin jaahil ah oo intuu salaada ku tukan lahaa xitaa aan garanaynin haddee noqoto reer magaalnimana ee ka marayso aniga waxaa ahay Mrs 9 million maba isdagaali karnaba labadeenne midda kale gareeqaanow aniga caydeeda iyo buuqeyga waxaa kaaga daran nin baa ku raadinaya le ninkan wuxuu iga dilay wiil aan adeer u ahay klibkaas buu soo gaaray Abdirahmaan Xamrow baa leeyahay Abdirahmaan Xamrow baa leeyahay haye muxuu sameeyay wuxuu dilay nin leeyahay Maxamed Abdullaahi Falano dilay in Abdullaahi Weershe kowde 2012 ku dilay ninkan odayga ee ku raadinaya cunuga ka dishay intuusan shuuto u tagin hoosa iyada iska dhamay waa ku salaama gareeqaan markalna waxaan ku leeyahay diinta islaamka ah cayday diinta waa looga baxaa wadaadadana waa kuwaana dhageyso ama diinta uu caayay wax diinta looga baxa waata diinta caaya dabcan waa gaaloobay qofka nabiga caaya ama ilaahay caaya ama diinta caaya ama malaa'igta caaya waa qof gaaloobay حبيب فارحو أدر مجد عمر محمود وعابس مجد متشرتين وعابس سي أظن إن برف وقشوف تاي برفون ولا أعداء وحنا إنك وصل الله بني أنا حتى كمان في كده الدنيا waxyaabaha saakay viralka ah oo social media haysto ayay kamid tahay laakiin aniga mid igu qosolka badan lama taqaanaa mar kale idinku celinaya clipkan waa sida soo xanaaqsan na walaalay ninkaan taleefanka ka dhaaf ninkaan aad taleefanka dabooda ka dhaaf sida soo wanaagsan ee leedahay mug maxaa naga tag iimaanka laga qaadiya u leeyahay walaalay ninka taleefanka ka dhaaf maxaa see tahay waa dhuumanooyaa ninkee war sidoo badbaado u baahan yahay hala badbaadiyo في حاجتين ما dhamaysano bas iika mukulaal yaa kaa dhiga ka taagan tahay naa ninka isaga tag dhig waa tahay saaxiibayaal update-ka maanta intaasaan kusoo koobayaa waa odaxaaye oo idin leh gacmaha ama teedka u fura like-ta ha iloobina ciao